بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتا قيمة يقايها له مرور بكو حران شبكة solarportal.com solarportal فيسبوك لايف يهدو إذن لافو مرور با واحد دقيقي كرتان لنكا إيو solarportal يوتيوب إسلام مركانا آتكو سمين كرتان سبسكرايب مرور با أو أدونك جوكتان وحان دي الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada isla markaana waxaad ku dhufataan buttonka la yiraahdo qaybi ama si qaybi ama share barnaamijkan dad badan ayuu anfici doonaa marar badan waan ka hadlay marka fadlan ku dhufo share ku dhufo si dadka kale ee iminka hawada ku jiray warkaan title-ka ama magaca hore waxa la yiraahdaa Soomaalida iyo sextortion marka Soomaalidu waan fahmaynaa sextortion waxa laga wadaa extortion-ka ama marka lagu baadayo ama blackmail lagu sameeyo oo sex la raaciyay marka dad badan ayaa lagu dhibaatay arintan waxaan bilaabay inaan ka hadlo 2016 solarportal.com way ku jirtaa iyadoo graphic-a hadala aad u foolxun dad ba maanta la yaabay markaan ku soo qoray ereyga nimanka Soomaalida ee qooqan of course waa af Soomaali waa qooqan waa lagu soo qorayaa waxa lagu soo qorayaa ma ahan inaad aftahan sidii hadraawi kala dhahaatid dadka waxa taabanaya inaad u sheegtaa arintan kumaan kun odayaal da'doodu u dhaxaysa 20 ilaa iyo 60 sano ayaa lagu dhibaateeyay niman kala jooga West Africa ama galbeedka Africa kuwa jooga Morocco iyo Philippines ayaa ummadii eber ka dhigay Soomaalida kaliya ma ahan Carabti Afrikaanti kale cadaanka ayaa lagu sameeyay laakiin muhiimadda iyo tooshka iyo focus waxaan u saarnaa Soomaalida marka hadii Facebook aad ku jirtid nin dhalinyaro aad tahay nin oday aad tahay gabar cadaan ah oo model ah hadii ay kugu soo darsato ay ku tiraado hi oo hi aad tiraahdid way ku dhamaatay oo waxa ku soo xiga ereyada sidana waxa ku soo xiga magaca heblow hebel halkay ku nooshahay meel hebel aan ku noolahay kadibna waxa soo baxaya in ay ku tiraahdo ma shaqaysa shaqo been aad u shaqaysa ama run inta badan Soomaalidana waxaan leenahay waxaan ahay doctor ama professor ama barkuuley waxa soo raacaya in ay ku tiraahdo gabar ma joogto meeshan niman baa kula hadlay West Africana especially wadanka Benin iyo wadanka Nigeria wadanka Ivory Coast wadanka la yiraahdo Ghana ayay joogan iyo Philippines iyo Morocco marka waxay kula anigu hobby baan leeyahay hobbigayga waxaan jeclay waqtigay faraaqada aan sameeyo waa waxa la yiraahdo sex marka dhalinyarada iyo odayaasha waxay idinka soo doonayaan ma jirto gabar qurux badan oo Facebook idin soo gasha oo hadda Ethiopian iyo Kenyaati iyo kuwa Soomaaliga ay isticmaalaan marka kadib waxa dhacaysa in lagu yiraahdo kaamirada noofur marka adiga marnaba shaki ka gali maayo dumar ama gabar ama naag qof soo yaqaan ku tirada kaamirada ifur waxa doonaysa waad u furaysaa marka ugu horeysa waxay ku leedahay waxaan doonayaa in aan isu ka qaawiyo marka ma joogto dumar gabar ayaa waxay istaagan tahay kaamirada dhabarkeeda ay istaagan tahay aan loo jeedin lahjadeeda hore ayaa laga fahmayo West Africa lahjada video ayaa lagu shidayaa videogaas hadli maayo telefoon kula hadli maysid video kuushan waa graphic tan ugu horeyso hadda ka horna waan ka afeeftay aniga laftigay barnaamij ayaan ka duubay oo aan diyaariyay oo runtii aad u yaaba doontaan marka lagu furo naag dharka iska bixinaysa nigiski iyo kishida iska bixinaysa oo markii dambe sariir isku kala walaaqayso oo isbalaayeenayso oo lugeeda kala qaadaysa ayaa lagu soo dhigayaa nimanka intooda badan xilligaas maskaxdoodu waxay noqotaa sidii dooligo kale ay noqotaa marka maxaa dhacaya inuu isiraahdo qofkan live kula hadlaya laakiin qof baa dhabarka ka hadlaysa oo waxay leedahay haye ka waran qaabkayo iimaanka ayaa ka tagay qofka marka maxaa dhacaya waxay leedahay si raaxadu ay sii badato bal adigana dharka iska bixiyaa leeyahay ninkii odayga wax kala arki maayo wuxuu arkayaa waxa Soomaalidu ay yiraahdaan bun sharuurka ayaa la yiraahdaa mar rab inaan graphic u sheego waxa laga yaabaa dad yar inay daawanayaan laakiin arintan waa arin jirta dad badan lagu dhibaateeyay shabakada Solar Portal waxa la soo xiriirtay kumaan kun rag Soomaali ah oo video laga duubay inta badan waxay yiraahdaan blackmail baa lagu sameeyaa ama video shop baa laga sameeyay ugu horeen video shop wax la yiraahdo adduunka kama jirto Hollywoodka oo adduunka ugu weyn oo Los Angeles ma sameyn karaan video shop Photoshop wala sameyn karaa laakiin camera inta laga duubo oo nin kale lagu dhajiyo ma soconayso adaa laga duubay marka hadii laga duubo in rag baa tahay qalad haduu ka dhaco waxa la sameeyaa waxa la yiraahdaa maxaa la sameeyaa marka solution-kii iyo qaabkii looga hortagi lahaa iyo qaabka haday kugu dhacdo looga nabadgelin lahaa waa idin sheegaya marka qofkan meesha fadhiya ma ahan dumar niman baa fadhiya gabar baa la joogta gabar la arki maayo dhanka dambe ay fadhisaa gabadha marka waxay leedahay ka waran
meeshaan joogo ida guri dhex socota laakiin hadli mayso waxay ku leedahay ka waran caafimaadkaaga ma fiican tahay halkay ku nooshahay in balaayo marka nin kastoo Soomaaliya soo dalbadan oran maayo waxaan ahay nin maaragtay suuqa bakaaraha ka xamaash oran maayo wuxuu leeyahay doctor baan ahay villa waxay ku dhisantahay Dubai Imaaraadka Turki Mareykan baan balaayo ka ahay waxaas uu leeyahay Facebook gagay samaysanaysa tusaalahan haddii Cabdinaasir aan leeyahay Cabdinaasir meesha ku ahaa 1i 2i baa lagu darayaa masawirkayga la soo qaadanaya oo lagu dhijinayaa saaxiibadii waa la dalbanaya waxa la leeyahay kii hore iga xirmay kan iga soo dalbada waa laga shaqaysanaya markii dharka laga siibo ama macaawis laga siibo oo lagu yiraahdo waxaan doonayaa inaan ku arko si raaxada u fiicnaato qofka maskaxdiisa ka tagaysa gabar qurux badanna way isu qaawinaysaa waxay ahaataba dharka marka laga siibo oo lagu qaawiyo ayaa laga duubanaya I wish dad badan inay dhageystaan marar badan ayaan intan aan ka hadlay marka dharka laga bixiyo kadib waa laga tagayaa after 3-4 days waxa lagu soo dirayaa mid kale oo muhiimna way jirtaa WhatsApp ma leedahay ayaa lagu leeyahay WhatsApp maalinta bixisay ku dhamaatay sababta WhatsApp-ka hadda option waxa jira aan tusi doono solo groups dadka ma ka tusi doono haddii WhatsApp-kaaga aad isiisid maanta family-kaaga group ayaan ka samaysan karaa website-ka dhexdiisa WhatsApp-ka dhexdiisa kaasoo ah in haddii WhatsApp-kaaga aad siisid naagahan oo beenta ah oo nimanka West Africaanka iyo Marookaanka iyo Filibiinka ay ka dambeeyaan in qoyskaaga hooyada aabaha reerka waxa isku sheekaysan jirto meesha inta la soo wada group laga dhigo maalinta lacag digid waxa lagu leeyahay Cabdinaasirkii oo macaawis ka dhacday bal eega adduunyadan waxa ka xun male hooyada iyo aabaha iyo walaalahaaga iyo kuwii kula dhashay iyo balaayi iyo xaaskaaga in adoo ma aragtay macaawis ka dhacday loo diro WhatsApp hadibin WhatsApp is very important haddii aad bixisid marka mar dhow waxaan sheegi doonaa solution-ka marka sidee looga hortagaa sextortion-ka marka waxa looga hortagayo ugu horreyn waxay tahay English wuxuu yiraahdaa if it's good to be true then it's not true haday sheekadu run weyn u eg tahay aniga maanta haddii Facebook qof intuu message iga soo diro yiraahdo Cabdinaasir $1 million ku siinaya run ma ahan waa wax runta ka fog marka adiga bal isweydii adoo nin qowsaar ah adoo mid ma aragtay qaabkiisa aan la fiirin karina gabar qurux badan oo model oo koranaysa hello my name is Eblay Hebel waxaan ku noolahay Colombia ama waxaan ku noolahay Paris ama waxaan ku maxay ku soo dalbanaysa bal isweydii intaanu nin adduunka joogta adoo Soomaali maxay ku soo xulatay markay Soomaalida odayaasheen dhalinyaradena waxaan la arkay inaan weakness aan leenahay weakness kan oo aha sexiga ragga Soomaaliyeed hadana waxaan ugu dhacay waxa la yiraahdo sexual frustration adduunka wixii socdo laba lug laba maskaxdeena angelina markaa sida aagud waxa la yiraahdo Soomaalidu waa daciif dhankaas sexual frustration ayaa ku dhacay hatta haday xaas leeyihiin ku ugu daran anigu waxaan ka hadlayaa 800 ayaan ka tiri intii la soo xiriirtay oo solution aan u helnay marka maxaa dhacaya dharkii waa laga siibay kadib marka laga siibay waad iloobaysaa maalinta kadib waxa lagu soo dirayaa message lagu leeyahay ma xasuusataa lagu leeyahay ilaa adaa aqbalay markii hore ay ku soo tiri waxaad ka aqbashay dhanka iyo Facebook Messenger ka aqbashay tan kalena marar badan ayaa idin sheegay dhanka teknolojiyada Facebook Messenger weliga waxa ku shukaansan weliga sawir ha ku dirin weliga video ha ku dirin hatta video naagta xaaskaaga sorry naagna dhawa qalad xaaskaaga adiga saddexda ku qabxata u dirin sababta kugu dhacaysa waxay tahay qof la isku halayn karo ma jiro adduunkan waxa dhacaysa in Facebook la jabsado meesha ugu horeyso ay eegayaan waa fariimihii aad diri jirtay fariintay eegayaan waxay arkayaan adoo macaawisa ka dhacday adoo surwaalka siibay adoo alfalaaxa iska siibay alfalaax reer Muqdisho ayaa yaqaan qofka hadaadan ka maarmin waxa la yiraahdaa halkan inta wajiga hadaadan ka maarmin dib ay kugu tahay oo qof xanuunsanaad ani waxaan balay 100% video iyo sawir hadirina hatta xaaskina ha u dirina laakiin hadaa ka maarmi weysid oo qof oo sick ah xanuunsan aad tahay intan Soomaalidu waxay tiraahdaa wajiga waa passport intan wixii ka hoosay hadii aad jirid cid ku aqoonsanaysa male qof oranay male ilaa waa qoorihi Cabdinaasir qof oranay male runta idin sheegaya hadalkayga ama oraahda iraada Cabdinaasir maxaa dhahay hadalays waa dhagihiin waa loo baahan yahay odayaasha in looga naxiyo loo sheego WhatsApp isticmaal WhatsApp kaaga cid aasiisa maahan cid kale ogaan kari mayso marka maxaa dhacaya marka laga duubo 10 daqiiqo adoo oo bahalkii muuska ah gacanta ku hayo indhaha ay kala qaloocdeen oo kiyaalihii uu ka dhacayo dhidid ka baxay marka laga duubo waxa lagu soo dirayaa Mr. Heblow bal soo dhawow ayaa lagu leeyahay waa kan ma xasta ninkan wiishka reer Muqdisho waxaan wiishka ugu yeeray adduunyada waxay ku noqonaysaa halkan aniga waxaan hayaa qof dhalinyaro ah 2 sano ka hor inuu isdilo ilaahay baa badbaadiyay laakiin aniga ayaa qayb ka ah ninkaas inuu isdilay
anaa ku caawinayna qaabka caawisku ma soo socda inuu ku sigtay nin dhal culimo ka dhashay gabar buu guursan lahaa wadamada carbeed uu jooga ma sheegay marka waxa dhacaya videogi waa la soo diraya adoo dhidid ka socdo oo muus gacanta ku hayo oo abay macaan ku hayo waa laga duubta afrikaanti waxa lagu leeyahay saaxiib $10,000 soo dir marka hore maxaad ugu sheekaysay dhakhtar baan ahay villa waxaan ku leeyahay Dubai iyo Istanbul iyo nin balaayo ka dhacday wasiiran ayaa leedahay waxaan doonaa in masaakiin iska heedo meel iska xamaashay EVC ga lacag ugu soo dhacdo waad baryotamaysaa marka biggest mistake waxay tahay communication-ka lama xiriiro hal mar haddii aad aragtid dadkan maalin walba way ugaarsadaan fishin ayay sameeyaan way dabtaan marka 10,000 qofood markay u diraan 1,000 ayay ka helaan marka 1,000kaas ayaa ka mid tahay solution-ka ay ku sheegayaan marka maxaa sameynaysaa haddii laga hayo WhatsApp waa ku dhamaatay WhatsApp-ka reerka ayaa la riskigaas waa jira laakiin sheekada ah video shaba lagu sameeyay dad baa igula dagaalay nin baan arkay weyn oo mas'uul ah hadda ka hor dhowr bilood ka hor aan ku arkay social media ma sheegay magaciisa baan uu yiri dadka cadawgayga ah ee video shafka iga sameeyay anoo qaawan oo shafka ay qaawan mudane aan soo shafka ma qaawaneyn video ayaa laga duubay macaawis iyo qamiiska iyo marada ka dhacday waa nacaadi ninka ragga waxa lagu yaqaan markii ay sheekada ku dhacdo gacanta la taagtaa waxa la yiraahdaa qalad baan galay sidee looga baxaa ma ahan qaladka muxuu u dhacay this is a logic waxa ugu horeeya aad sameynaysid waxay tahay marka intaas kugu dhacdo waa very simple Facebook-gaaga deactivation ayaad ka dhigaysaa 15 days ama 15 maalmood waa dadka ay ku dhacdaan intaan ay ku dhici doonto mustaqbalka u sii sheergaray u sii sheegay ma ahan inaad delete ka dhigayso horta waxa kugu dhacay shock ayaa kugu dhacay shock oo waxa kugu dhacayo aadan filan karin nin koronto ay ku dhigtay kula noqonaysa markii nimanka Soomaaliyeed markay qaawinaan ma qurux badna shock markuu kugu dhaco waa la isdejiyaa haddii panic uu kugu dhaco oo ay sii waasho wax ma xalin kartid wax ka soo kugu dhaco waa la isdejiyaa horta ceeb iyo fadaaxo hurdilana kugu dhacaysa dad badan ay ku dhacdaan arkay waxa la sameeyaa Facebook deactive laga dhigaa meesha kala soo xiriiraan WhatsApp-kaaga haddii aadan ka maarmin haddaad ka maarantid disable laga dhigaa lama tirtiro disable laga dhigaa 15 maalmood iyagu marka after 5 days aniga waxaan ku sameeyay almost hal sano ka hor hal sano iyo barkor waxaan ku sameeyay research ayaan ku sameeyay University of London Birkbeck College meesha la yiraahdo sextortion-kan within 5 days ama 5 maalmood gudahooda way ka caajisaan waxay soronayaan kan waxba ma haystay masaakiinkan man u baahnin tan kale waxay kugu biqsanayaan ama ay kugu waabinayaan in ay soo dhigayaan YouTube iyo Facebook iyo YouTube ma soo dhigi karaan algorithm-ka uma ogolaanayo wax qaawanaanta shafka hor hadli mayna qaawanaanta hosan ka hadleen oo ogolaan maayo marka waxa kaliya u banaan waxay tahay in saaxiibada ama qoyskaaga oo ay ku darsadeen in ay u diraan chance-kana waa yarahay sababta qofka hadduu saaxiib kula ahayn wuxuu gelayaa hoos ayuu gelayaa messenger hoos ayuu gelayaa la arki maayo laakiin riski waa jira ilaa iyo 10 qofood oo waalidkaaga saaxiibada ama xaaskaaga ama extada ay aragto waa jirtaa hadday arkaan fair enough qalad baad gashay qof ma aadan dilin qof ma aadan qarxin qof ma aadan dhicin marka after 5 days ha is oranin bal out of curiosity waxa la yiraahdaa bal wax aan daydayo inaad Facebook-ga aad isha ku xadid ha sameeynin Facebook-ga laba way ka xirnaado disable waxaad ka dhigtaa deactivate ka dhig waxa kale deactivate ka dhigaysa WhatsApp ka dhig haddii aadan ka dhigin oo communication ala sameeysid oo negotiation la sameeyid waa ku dhamaatay waxay ku ogaanayaan ay si ogaanayaan qof mas'uul ah qof lacag leeyahay qof inaad noqotay ogaanayaan teeda kale dhibkaagana qof kasta lama qaybsado qofka kugu dhow dhibkan ayaa ay haysta aan dad badan boqolaal ana qoon u lahayn weligeena markin oo Soomaaliya oo iska kay aaminay oo arimahan aan ka sheekayn jiray 2016 ilaa hadda ay la soo xiriiraan waxay inta badan yiraahdaan Cabdinaasir oo saaxiib oo arin yar ayaa jirta dad baa dhibaateeyay oo video shaba iga sameeyay waxaan raa stop video shaba laga sameeynin macaawisa laga siibay waa bahalkaagii it doesn't matter and waxaas adna waad aragtay adna waa istaqaana qofka tahay sheekada iska ilowaan dhahay solution ayaa loo baahan marka dhibka markuu Soomaalidu wax waa maada dhibka muxuu u dhacay maxaa lama yiraahdee sideen solution ku helnaa ama sidee wixii looga badbaada marka tan ugu horeysa hadiiba ay kula soo xiriirto qof ajnabi ama qof Soomaali sawirkeeda hadda waxaan arkay 3 maalmood ka hor waxaan arkay gabar Soomaaliya ayaa sawirkeeda loo isticmaalay isla markaana waxa la isticmaalay pornography oo Eritrean ayaa loo isticmaalay marka ninkaas qalbigiisa waxa laga dhaadhiciyay qoftan in Google Translate loo galo ha iska waran Soomaali ma tahay ha aniga dibaddan ku dhashay Soomaaliga ma fiicna guriga kaligeey degan hooyo aab waa maqan yihiin waxaan rabay inaan soo raaxaysano ninkan iimaankii
iimaanka lagu sheegay markaa iimaanka diinta islaamka ma ahan kan cuntada lagu cuno oo Soomaalida dhihi jireen war hebel waa iimaan yuk ay dhihi jireen maahan oo cuntada badan maahan iimaanka waa marka saasoo kale oo lagaasiba literally gabar saan oo qurux badan aad aragtay iimaankii waa ka baxaya waxaad oranaysaa qoftan guri kaligeeda joogto markaas leedahay camera ma ka soo waxa laakiin telefoonka dariska maqlay kuma hadli karo ilaa Soomaali ma baahan waa Eritrean ama Ethiopian pornography samayso waaye kadib gabar kale dhankan istaagan dhanka dambe hi hello waxay ku leedahay aniga af Soomaali badan ma aqaani af Ingiriisi ku hadalnaa adiga ma buujeed gabadhii oo dharka iska sii bixinaysay music ayaa ku shidan marka raggeenan Soomaaliyeed ee lagu dhibaatay solutionka ugu weyn aad sameyn kartaan waa inta idin sheegay laakiin maskaxdaada gali gabar qurux badan maxay ka soo doonaysaa ugu horeyn ay ku leedahay model waxaan ahay Instagram model ah inta badan 1.5 year ago markaan research aan ku sameeyay Birkbeck College University of London waxyaabaha ii soo baxay waxa kamid ah every picture sawir walba ay isticmaalaan waa model Instagram ku jirta hadda isku day dad badan waxaan u jeedaa ay arintan ay ku dhacdo hadda ku jiro isla bismillaah tan ay soo martay sawirka qoftaas ama dumarka ah ama naagta ama gabadha ay ka soo dalbatay soo qaad soo koobi garee Google gali waxa ku soo baxay iyadoo model caadi oo meel kala joogto marka waa rag oo ku nool Benin Ghana Nigeria Morocco isla markaa Rabat magaalada caasimadda ah iyo Philippines Manila agteeda marka su'aashu waxay noqonaysaa waa lagu rafaadinaya dhibaata ku soo gaaraysa dhibaatada ugu weyn ku soo gaaraysa waxay tahay in waxa laga yaabaa nin wanaagsan oo ahludiin oo reerkii laakiin si kasto adiga aad tahay iimaankaaga haduu yar yahay in arintan ay ka tambayso qof walbana ku dhicirta by the way si kasto iimaan aad u leedahay si kasto aad u wanaagsan tahay si kasto waxa doonta adiga kugu dhacaysa waxay kugu dhacaysaa markay timaado ereygan la yiraahdo sex la yiraahdo raggu waa isugu wada mid hadday ahaan lahaayeen libaax haduu ahaan lahaa shabeel haduu ahaan la geel haduu ahaan lahaa markii ereyga sexiga ay arkaan marka erey waxa jira aan isku dayn inaan tarjumo la yiraahdo irony wuxuu noqday marka isma qabatada wuxuu noqday raggeena Soomaaliyeed waxaanu shaqo ka dhignay in gabdhaheena Soomaaliyeed aan ka duubno video aan ku fadeexayno kuwa la kufsanayo live kuwa kale marka hadda waxaad u jeedaa irony ah in raggeena Soomaaliyeed niman Nigerian ah iyo niman Ghanese ah niman Benin ah niman Moroccan ah iyo niman kale oo ku nool Philippines ay naga duubaan ayna soo dhigaan nin ayaa ku daawanaya adoo macaawisti iyo alfalaax iska tuuray iyo shaatigii oo 10 maalmood ah wadatay dhidid kali ah qaanjeerta la iska tuurtay ayaa niman ku daawanay adoo qaawan can you imagine that can you imagine gabdhaha Soomaaliyeed siday feel gareynayeen marka uqubadii anaga aan sameyn jirnay ma la dhigi karo way nagu soo laabatay marka in reality runta ragga man xis in reality uqubadii anaga nahaysay hadii maskaxiyan ay ka shaqeeysid way nagu soo laabatay waxay nagu soo laabatay waxay tahay in niman West African amount video inaga duubaan marka digniinteedu waxay tahay oo Solar Portal idin sheegay waxay tahay solarportal.com website-kiisa gala arintan waxaan ka hadlay 2016 bishii May waxaan ku sugnaa magaalo ku taala wadanka India oo gobolka la yiraahdo Uttar Pradesh oo jooga ayaan soo gudbiyay si fiican u xasuustaa waayo habeenkaas waxaan arkay in xilliga mas'uul ah hadda mas'uul ma aan oo waxaan arkay si xun loo galan arkay oo wali waxa la yiri isgadgadiya la yiri nin weyn oo calool weyn isgadgadiya la yiri asal gadgadiye aad baan uga nahay marka hadda barnaamij ayaan diyaariyay insha Allah goor dhow waan soo gudbin doonaa barnaamijkaas wuxuu yahay iyagii ayaan ka duuba marka طبعا واحد جرافيك ما سو غدبين كرين waxaan soo gudbin karin Facebook-na waa laga xiraya ama YouTube waa laga xiraya waan daboolaya wax walba iyadoo graphic aan ka duubay ani waad aragteen markay soo galaan waxaan halkay ku nooshahay Godin laba California ku noolay maxaad ka sameeyay looge forex-an ka shaqeeya loogi lacagta xaday waxaan yiraahdaa marka dambe markay soo galaan kaamirada waxay leeyihiin hello iska waran fiican tahay ha yes waxay leeyihiin dharka iska siib showerka gal markaasan waxaan iska dhigaa qof aan Ingiriis aqoonin iska dhigaa waxaan yiraahdaa what showerka muxuu yahay markay igu daalaan aan ka duubo oo iyaga isbilaayeen ka bacdi iyaga bigu daminay waxay leeyahay kan waxba kama soconayaan laakiin digniinta qof kasto aad taqaanid gabar hadaa tahay u sheeg saaxiibka odayga adeerka qof walbo dadka aniga la soo xiriiray 800 ah waxay u dhaxeeyaan 60 jir ilaa 15 jir rag waa la rafaadi rag cilmi leh wax bartay degrees haysta kuwa aan wax baranin kuwa meelaha iska xamaasha kuwa mudug jooga kuwa jooga kismaayo qof aan ku jirin ragii oo dhan waa soo wada galeen maalintii average 5-7 email aan helaa waxayna isaga mid yihiin inay yiraahdaan
video shop ayaa laga sameeyey walaalayaal dhalinyarada odayaashii daawanaya video shop wax la yiraahdo ma jiro adigaa isqaawiyey adigaa lagu soo doontay adaa lagaa duuban marka ayaa lagaa duubin gabar cadaan ah oo model oo wadata sawir ah hadday kugu soo darsato isla markiiba Cabdinaasir iyo Solo Portal soo xasuusto waxa yiraahdaa ii soo duceey waxa tiraahdaa ilaahu janno geey Cabdinaasir waan ka badbaaday waxaana filay dad badan ay ka badbaadeen dad badan ay og yihiin aan ka hadlay xalay ayaa ugu dambeysay nin maaragtay Hargeysa jooga dhalinyaro ah oo asnada soo galay uu lahaa Photoshop lagu sameeyay video show ma jirto waan u sheegay raggeena markaas u qooqdaan Ramadaanka intaan la gaarin ka hor sooma hadaa ka maarmi weysaan gabar guursada culimada bay idin sheegtay laakiin sheekadana adoo hotel jiif ama qolkaaga oo barkinta ku taalo gabar qurux badan oo model ayaa ku soo wacaysa adoo bakaaraha degan ama daynila degan ama gaalkacyo degan gabar waxa ku soo wacaysa model oo Colombian ama New York Los Angeles joogta ma adduunka niman laga waayay mise nimankii Soomaalida waxa la yiri maaragtay waxay noqdeen the sexiest man alive marka waanadaydu waa very simple qofka ugu soo biiray inta barnaamijka bixin waanadaydu waa very simple hadda ugu horeysa prevention ka hortagida is better than cure daaweynta ka hortagida ayaa ka muhiimsan in laga hortago maxaad kaga hortagaysaa gabar qurux badan oo ku dhahaysa intee ku nooshay maxaa ka shaqeeyay haday kugu soo darsato block ku qabo iyaysan ku arkin haddii arrintan ay ka hormarto sida logic dad badan ay ka hormartay haddii kugu dhacdo communication haba yaraatay hala sameyn haddii videoga aad aragtid panic ku dhacay stage ogow qof ma aadan dilin xaniyahaagii iyo bahalkaaga banaanka la soo dhigay waxaad sameynaysaa Facebook deactivate ka dhig 2 weeks أنا أقول حنجر 10 هذا كوفيد كيو كلا كدقي كوفيد كوا 14 days كارانتيل إسكالي كارانتيل كواحد بس يدرن هدي شن معلومات أذكى هان كري ويشيد إن أتسوق يشيد فيسبوك وأستراحيد وحي والي لو بقال استراحيد ولا وسوقيا مو إيمج كجا دركتيد يا صاحب هذا الله درينا مو أد بانيك وقداعي هدي صاحب كا لب مال الله درو والله هذا ليس صاحب نرجعنا هاي درنا الله مرضى يقدر qof ma dilin taasigu hadii waalidkaaga iyo xaasay qof kale loo diro la fadhiiso dadka waxba hasdeen video show wax la yiraahdo ma jiraan waxa tiraahdaa way iga hoos baxday nin raga ilaahay ga dhigay arintan waa qalad weyn ayaan sameeyay waa la rafaadiyay way iga hoos baxday qofka kale inuu ku judge gareeyo adiga it doesn't matter wax kasta waxaad ku xasanaysaa social media very important waxay tahay qof baadiyaha Kismaayo jooga mid baadiyaha Hargeysa jooga mid baadiyaha Garowe jooga noloshaada effect kuma hayo marka dadku waxay isu maleynaysaa inay fadhiyaan maqayso fadhiyaan qof intuu soo galo ku yiraahdo Cabdinaasir video ya laga duubay balaayati Cabdinaasir waxba laga sheegay it doesn't have effect on your life ma mishaaro ka jiranaya maya waa qof aadan noloshaada dambe arki jirin marka effect ku noqon qofku ku dhihin hebel baa bahalkii inta lagu dhihi la hebel qof buu dilay ama umad buu rafaadiyay hal lagu dhaho ninkii maalin baa wax laga duubay way dhacdaa nothing you can do adduunka ka dhacda marka ugu dambeyntii sheekada ugu muhiimsan waxay tahay barnaamijkan sextortion kan usoo galiyay oo blackmail ku sameeyay waxay tahay marka arinta ay kugu dhacdo ayaa ka sii muhiimsan wax walba waxay noqonaysaa in Facebook 2 weeks corona ku xisaabtan 14 days xir Facebook deactivate ka dhig waxa looga dhigaa waa very simple boqol jeer aan ku soo celceliyay setting ayaa tagaysaa marka tagtid waxa tagaysaa setting ka hoose tagaysaa waxa tagaysaa personal information deactivate my account aad leedahay solargroups.com waan soo gelinaya galabta insha Allah kadib deactivate maxaad u xiraysaa lagu leeyahay waan soo laaban doonaa 2 week markay 5 maalmood ku waayaan dad kale aadeen wars kale aadeen hadda Arabti iyo qolo badan ay aad Kuwait iyo lagu sheekay Imaaraat aad u rafaadiyeen laakiin meelaha ugu badan Soomaaliya ay waxay kale lacag badan lacag $1 xataa blackmail hadii lagu sameeyo dhiibin communication la sameeyeen hala hadlin any Facebook adii allada ay yaqaanaan ama WhatsApp block ka saar laakiin hadii aad tiraahdid waan la xiriiraya lacag baan bixinaya hadda ninkan xalay aan u jeeday oo Hargeysa jooga dhalinyarada waa ka xumaad wallahi negotiation baa socday waxa la weydiiyay ninkan 5,000 ma aqaan la weydiiyay isna wuxuu yiri konton aan soo diri karaa waxa la hadaa sameyn weysid waxaan kugu sameynaynaa bahalka sidan nin baa soo galiyay aan saaxiibnahay oo reer Hargeysa oo yiri Cabdinaasir waxa ka sheekeyn jirtay marka lacag ka soo adeysay lacag diibin haday kugu dhacdayna Facebook 2 week xir kadibna iska ilaali qof kastana u sheeg ha ka xishoonin inaad tiraadid war dumarkan iska ilaaliya dumarkan beenta dumar meesha ma yeelan rag baa dharka isaga bixinaysa taasa ka sii xanuun badan can you imagine intan halkan soo fadhiiso dinko live ay daawanay hadda aan dhar iska bixin bilaa wax ka furxun ma jiro adduunka niman walba xataa haday gabar ahaan lahayd waxa dhihi lahayd wax bay aan kaligeed ahaan lahayd hadii adiga ku fikirtid mindset-kaaga u yahay laakiin
haddii niman afrikaana west afrikaan adiga ku daawanayaan adoo baalkii ay kugu qoslayaan tii ugu dambaysay 5 habeen ka hor anoo meel ku jira ayay maaragtay iska soo dhigtay soo wacday hay magacaa sola intee ku nooshahay godin labe ani markaa meel godin labaan ku noolay California way sheekaysanay waxaan ahay markaas hadalka ugu horeeyay waxay ahayd showerka ma gali kartaa marka waxaa laga rabaa adoo ma aragtay daba xun kugu taala in laga sawiro adoo bahal yaro moosa ku yaala meesha iyo xaniyaaga la sawiro lagu rafaadiyo marka waxaan maqli jiray marka qooq uu ka bato ereyga dad baa dhibsaday laakiin it doesn't bother me aniga marka qooq ka bato malmalka cad soon guurso iimaan ku yeelo qoftaada ku ekow laakiin haddaa is leedahay model Colombia ama Los Angeles ama Paris joogto oo haddaa aragtid say u kala qaloocan tahay adiga ku soo raadsanaysaa dhahdid waa waalatay marka revenge ama aargudsi waxa yimid oo automatic ah oo xagga Ilaahay nooga yimid ayaa noo yimid annaga kufsigeeni gabdhaheeni inaan sarha aan ka soo tuurno gabdhaheeni aan si wadareed u kufsano maalin walba hadda maxay Ilaahay noogu bedelay in niman Afrikaan dharka inaga bixiyaan kufsadaan waa kufsi qofka privacygiisa marka la qaawiyo kufsi wax ma dhaamo niman Afrikaan ma kufsanay anaga rag Soomaaliya oo West Africa iyo Philippines iyo Morocco joogay Arab marka taas waxa ma taqaan wixii anaga aan sameeyna lagu sameeynaa had marka Ilaahay Ghafuur Rahiim meelba wax ka arkaya marka anigu personally ma doonayo qof Soomaali ah dhalinyaro ah oday wuxuu ahaado uu ku dhaco laakiin never justification ha sameeynin ha oranin waxaan iguma dhicin cadawayga sameeyay kuwa xisbiga soo horjeeda siyaasad min qabiil ahaan inacib no adaa sameeyay qofka ragga aan waxa lagu yaqaan responsibility-ga ama in uu qaato gacantiisa loo taagaa waxa la yiraahdaa aniga oo hebel ayaa ka mas'uulay in dharka laga bixiyo macaawis laga tuuro wallahi baan ku dhaaranaya wallahi wax ka weyn lagu dhaartay ma jirto tobanka ugu dambeeyay ramadaanka qof lagu sameeyay artay most of us oo aan ka caawinay most of us inteen ugu badan majority-geena tobanka ugu dambeeyay ramadaanka waa waqti cibaado tusbax la wato salaadaha la badiyo nimba saas lagu sameeyay asoo wali salli ku fadhiya wallahi baan ku dhaaranay panic ku dhacay marka hore yiraahdo video shop baan u maleynay yiraahdo taban magaciisa ma sheegay meel uu joogay iyo ma sheegay laakiin marka qofkii la soo xiriiro waxaan raahdaa I'm not here to judge you and judge me wixii adii aad sameeyay Ilaahay ga yeelan laakiin aniga I'm trying to help you inaan ku caawino ayaan doonaya bas kuma dhahay aniga war caliyo jaamaco maxaa kugu dhacay nin weyn baa tahay maxaa macaawisi alfalaah laga bixiyay why would I say that it's not my business aniga dambigaasi ma saarna haduu dambi jiro asuu saaray asaamka mas'uula marka qofka maxaa lagu caawinaa waxa lagu caawinaa simply la yiraahdo sidaan marka waan soo gabagabeynaa laakiin waxaan ku soo xirayaa odayaasha gabar kuma jirto meesha gabar shaqo kuma leh gabdhaha qaarkood way qoslayaan they have a right odayaasha waxaan u sheegayaa gabar qurux badan oo model ah Facebook haday kala soo xiriirto ama WhatsApp ama any Instagram ama TikTok ama balaayo walba haday kala soo xiriirto waa niman ag fadhiya iyo gabar kale oo hadlaysa codkeeda isku qaawinaysa ma ahan hala xiriir iska block garee haday kugu dhacdo in dharka laga siibo macaawisi alfalaaxa waxa kula haboon in Facebook-gaaga haduu yahay meesha laga soo xiriiray way sameynayaan magacii ka sameeysanayaan inaad xirtid at least inaad xirtid 2 weeks covid 14 days out of curiosity aan ku soo celiyo yey noqon in aad eegtid oo geesa ka furtid aad eegtid yey noqon haddii aad furtid aad istiraadid bal waxa ka socda eeg message-ka ayaa ku yaala qofkana message-ka hadduu arko damage u gaarsiinaya panic ayaa ku dhacay waa naxaya wuxuu leeyahay solution samee lacag dhiib ama حتى هدي $10 أو درتي $10 أو درتي there's no difference واحد فرق وده حي ماله فيديو يمروا الواها يعني مول عقد درتي مول عقد الدنيا يعني مركل عقد خرطه واحدك يرى حتى $1 أيانو بهانا هاي never send $1 صابت الفيديو ويا لما شو حورنا يعني نين كان أما نين مهم نين مسؤول العقلية وحكى عن كران مركا ما حق جرانتي كاغري يعني هذا واحد كادوبي ما حق جرانتي كاغري فيديو إنه كله بديليت كرينا مو مسحية هدي واتساب أو قدرن واتساب كهديبين هدي حتى كقول على مقلد هدي واتساب كذا دي جروب فاميلي لقى سمية هدي لقى سمية أنا هايو أبو إيدو هبرير أييو أيا لودي بيا طبعا هايو هذا قانون واقع عرفت لكن واحد جرتي أنت وده حيسا ما أنت هدلتي إلى يسد حسنا قف ربا يسقو أدلتا لا بقى تنجرة تبان تنجرة اللي تنجرة هو يديس يسوق قابين ركتو
can you imagine that wax kugu dhacay hooyo oo loo diro adoo qaawan oo bahalkaagii banaana ah gacanta ku haya waxaa qof wax oo maarta qofku waxa baanig ku riday waa kaas waa familkaaga marka la share garay xaaskaaga nina xaaskiisaas kaga tagtay oo ii sheegay wuxuu yiri xaaskii waa iga tagtay yiri video ii aragtay asoo naag asaa niman gadaal kaga qoslayaan marka ilaahay tawfiiqana waafajiyo saadi ku sheegay maalmalka caba maalmalka dactan waa degaysaan baa leeyahay sooma waa degaysaa baa leeyahay taada kale qof aad habi ku tahay kalsoon tahay guurso iska ilow qalbiga hadduu soo galo social media wax kaleeysa istiraahid waa ku dhamaatay waxaan kaloon soo wadaa hadda insha Allah isniinta waxaan soo deynayaa barnaamij aan sameeyo security ayaan soo deynayaa sologroups.com shabakadaan ka sameeyay oo ah videos waxa jira YouTube aan soo diro haddii lagu diro oo aad daawanaysid wuxuu take over ku sameynaya ama la wareegayaa kamerada oo telefoonka ama iPhone ama Samsung ama waxa haysid ama laptopka kamerada ku la wareegayaa aniga xataa barnaamijkaas markaan arkay oo isla markii aan sameeyay GIC hab aan ka sameeyay ana shock igu dhacay YouTube lagu soo diray wax lagu leeyahay heesi ugu dambeysay oo fanaan ma doonayaan sheeg magaciisa fanaan hebel qatata aha bal ila daawo adigu waxa daawanaysa video kaliya markaas aan u tiriyay marmar pop up ayaa soo baxay alla way leedahay sawir waxa laga qaadayay video oo adigu gurigaaga joogo adoo masqusha ka soo baxay adoo meel walba galay hadda korna waan sameeyay barnaamij noocaas ah marka barnaamijkay waxaan ku soo afjarayaa dhalinyarada odayaasha take care yourself gabar qurux badan haday kula soo xiriirto oo inta badan oo European ah haday ahaan Colombian Americanka gabar ma aha waa niman Afrikaan ah oo raggi Amazon ah waaye oo gadaal fadhiya marka Amazon adoo dharaantaada waxa la qaawan ay leedahay Soomaaliya saxa dharaantaada inay ku fiirsadaan can you imagine ay fadhiyaan waa 10 meeshay fadhiyaan ko haday kugu dhacdo WhatsApp kaaga hawada ka saar temporarily waqti yar ka saar ugu dambayna Facebook kaaga temporarily ka saar inta wixii ka dambeeya hadii oo barnaamijkan YouTube ma galnay idin soo gaaro oo aad dhageysataan oo laakiin malmalkina aadan cabin oo iga tambadiso idinka idin jirta wax laga qaban kara haba yaraatee ma jirto barnaamijka kale aan ka sameeyay iyagana laftigooda aan ka duubay iyagoo oo si dadku soo galan waa idin soo deynaya wixii akhbaarada info waxaad ku direysaan solarportal@gmail.com hadii dibkan kugu dhacana insha Allah solutionkeeda solarportal@gmail.com ayaad igu soo direysaan take care wa anigoo ah Abdinaas Ismaaciil Solar Portal intaan hawada kulmi doono waxaan kaga tagayaa wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh